مسؤولين وهجامين مدحونها دولة ديجان Soomaalida mudane Mustafa Mohamed Umar oo magaalada Hargeysa ugu sugnaa howlo la xiriira xoojinta xiriirka ka dhaxeeya labada shacab ee walaalaha ah ayuu saaka qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo mas'uuliyiin sare oo ka tirsan maamulka Somaliland مسؤولينta labada dhinac ayaa ka wada hadlay qodobo door ah oo ay ka mid yihiin amniga iyo ganacsiga shalay markii aan mid laga bilaabo shirar gaargaar iyo mid guudba waanu galnay qodobo muhiima oo laga wada hadlay ayaa jira ugu horreynta madaxweynuhu wuxuu fariin ka waday dawladda federaalka oo gaar oo si gaar ah uga hadlay dawladda Somaliland dhinaca kale qodobada guud waxay ahaayeen laba qodob mid ganacsiga iyo mid dhinaca amniga ka ganacsiga ugu horeyn wuxuu ahaa sidii arrimaha ganacsiga iskaashiga loo soo xoojin lahaa oo ay ugu muhiimsanayd dhawaanahan sidii noogeen 5-6 bilood u dambeysay waxa jiray arrimo la xiriiray dhinaca sarifka lacagta birta oo khalkhal in lagu sameeyo la isku dayay oo maciishadii deegaankeena mar aad kor ugu qaaday dadaal ay dawladda Soomaaliland nala gashay iyo dawladda deegaanka Soomaalida iyo laamaha heer federaal laftoodu ayaa arinta wax laga qabtay marka tii sidaan u soo xoojin lahayn maadaama imika ay jiraan isku dayadii kuwa lamida in arintaasi khalkhal gasho sixir kor u kaco oo sixirka lacagta mar kor u kacana waxa sameysmaysa iyadana in sixirka maciishaduna kor u kaco marka ugu horeyn arintaas sidii dadaal labada dhinacba loo sameeyay inaanu ka wada geysano waxa kale oo dhinaca ganacsiga aanu ka wada hadalnay isticmaalkii takada berberada corridorka iyadoo infrastructure-ka kaabayaashii dhaqaale ee takada wadooyinka ay socdaan waxa loo baahan yahay shuruucdii ganacsiga lagu hagi lahaa markii arrimahaas dhamaadaan inaynu hadda laga sii shaqeeyo marka wada hadaladaas oo dawladda hadda ka hor labada dawladood u socday ayaanu iyagana wixii aanu ka geysan karnay laga sii geystay in halkii taagnaan hore looga sii wado marka iyaguna dadaalkana hal talaabaan hore u qaadnay in wixii isfahan u baahan iyo arrimaha baahan in meel isku fahan laga yeesho inaynu ka yeelano marka dhinaca ganacsiga labada qodob ayaanu ka wada hadalnay dhinaca amniga sidaynu ognahay wadankii dagaal ka socda maanta deegaanka Soomaalidu waa deegaanka kaliya nabdoon xoolo fara badan oo raba inay taasi ayna sidan ay tahay si ahaan ba jira oo intooda badan ka soo shidaal qaadanaya TPLF xoogagaasi meelo kala duwan bay rabaan inay dhaqdhaqaaq gudaha maadaama ay waxba ka sameyn karin in meelo kala duwan ay dhaqdhaqaaqi wax soo mariyaan ay rabaan marka taa lafteeda sidii aanu iskaga kaashan lahayn ayaanu ka wada hadalnay ilaha Soomaalida ay ugu sheeg laga soo galayo iyaduna waxa kamid ah isku dhacyada qabaylada oo meelaha qaar kood la rabo in dab laga shido noocaasa marka taana sidaan iskaga kaashan lahayn ayna ku dhici lahayn inaanu iyadana falowgeed galaano ayaanu ka wada hadalnay marka wuxuu ahaa kulan isfahan guud ku soo dhamaaday oo si fiican la isku fahan labada dhinacba qodobadii laga wada hadlayay wixii dambana xiriir toosa laga yeelan doono insha Allah waakin geestiisa wasiirka warfaafinta Somaliland oo nooga waramaya kulankii ay yeeshan labada dhinac waxaanu ku faraxsanahay inay shalay noo yimaadeen madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliyeed oo runtii iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayay soo gaareen jamhuuriyadda Somaliland waxaanu ka wada hadalnay waxyaalo fara badan runtii aad iyo aad baanu ugu qanacnay dhan kasta warkii aanu isla garanay ee miiska isugu keenay ay ugu mudan yihiin dhaqaalaha iyo nabadgelyadu iyo waxyaalo kale oo laga wada hadlay oo aanu isleenahay talaabo aad u fiican weey Cabdirasaaq Daaja SRTV magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland